والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. maanta waxaan bilaabaynaa casharadayna hore inoo sii socday qayb ka mid ah tutorialkeena hore inoo sii socday networking. maanta waxaynu qaadanaynaa qayb la yidhaahdo JCP means automatic. marka insha allah saa igula socda ilaaha. marka horeysa waxaan soo qaadanaynaa router. marka xigtana waxaan qaadanaynaa switch. marka labaadna waxaan qaadanaynaa switch. labada inagu daaya ama saddex ka dhig ama kan waxaynu ka dhignaa printanka. ninka laptopkan haysta ama computerkan haystay printankan ninka laptopka haysta ama computerka haystay printankan maga soo daawacan karaa waa shay isku dayna insha allah ilaaha. saan xalay cashirkii kasii horeeyay aan ku tilmaanay kan straight baa la yidhaahdaa. xadhigan waa different device ayaa lagu xidhaa. marka kanaan soo qaadanaa internet 0/0 ku xidhinaa. waxaa la yidhaha waa board. switch wuxuu leeyahay 24 board ka alla kaa jeceshaad ku xidhi karta. markaa waxay noogu xidh xadhi kalaan isticmaalaynaa aan oranay automaticna wuxuu sheegayaa isla kan because waa different device buu sheegaysna. wuxuu noo choose garaynayaa ama inoo doorayaa connective xadhiga nooca uu ku xidhmay inoogu xidho. marka internet 0/0/1 ama si kale xadhigan inoo soo qaad 0 kana qaatay 1 inoogu xidho. waa 1kiisa kale ku xidho ama 2 ama 3 ama 10 ama 9 ama 4 mid inoogu xidho 3 gaaba inoogu xidho. sidoo kale waa different device yet 1ki waa la qaatay 2 baa ku xiga 2ga kan inooga dhig 3ga kan inooga dhig. marka kan inoo soo qaad kan 4 buu ka dhigay isagoona kuu sheegay kan wuxuu ka dhigay 2 wakaa 2 halkaa 2 buu ka dhigay 0 buu ka dhigan ujeedaa 0 1 waa kan 3 baan ka dhignay 1 buu soo qaatay 2 kan uu ka dhigay waa kaa 2 halkaa waa 2 dee printerkan inooga xidha 4 marka waxaan programinaynaa ama configuration ku sameynaynaa routerka in order to connect to tabiska. bismillah. marka halkan waxaan siinaynaa 2.168.1.0 waxaan oranaynaa network 1. xagga waxaan oranaynaa network 2 wuxuu ka bilaabaysna 192.168.1.2.0. imiga 0 ma isticmaalin laakiin hadhow .0gan iyo networkan waan isticmaalna gudahan ka dhex isticmaalna. halkaa marka la joogo
waxaa la idhaahdaa user mode baa taaganta. markaa waxaad ku qoraysaa enable ama waad soo gaabsanaysaa, waxaa qoraysaa enable sidaa ama sidaa, labadaba is okay qaadanayaa. haddana m qorno u shaqeynaya. enable waan soo gaabiyay. config haddaad qortid iyo configuration haddaad qortid waa isku mid. haddaan qoro config t is connect igu xidhmaya. if I write haddaan qoro configuration terminal, labadaas haddaan qoro labadaba ku xidhmaya waayo waan soo gaabsadoon ku xidhmaya. configuration terminal ku xidh haye. marka halkana magac baan bixisanaynaa, kana magac baan bixisanaynaa. waxaan oranaa host name, waxaa oranaysaa qaybta koowaad int. marka kanaan ka dhignaa qaybta koowaad waayo kanaa zeroya, wakaa zerogiisa halkaasa zeroya. markaa qaybta koowaad kanaan ka dhignaa int. haddaan int halkana waxaan kasoo gaabsaday interface file internet 0/0 hadba boortiga kuu taagay. haddaan inti qoro uu ku xidhmaya, haddaan qoro interfacena uu ku xidhmaya. tusaale int file internet 0/0 is connect. if I write interface file internet 0/0 saas haddaan qoran ku xidhmay waa intan oon soo gaabsada int file internet 0/0 waan soo gaabsada. network qor haddaba 192 may waxaa qoraysa ab addresskana sidaana oran kartaa. haddaan saa qoro isconnectisna waan soo gaabsanay. haddi kadib haddaan soo gaagaabsano waxaa u fahantaa haddaan qoro address baan ka wadaa, int haddaan qoro interface baan ka wadaa, fa haddaan qoro fast internet baan ka wadaa, haddaan config qoro configuration baan ka wadaa, haddaan t qoro terminal baan ka wadaa, en haddaan qoro enable baan ka wadaa. markaa kana haddaan saa qoro enable 192 is okay, haddaan saa qorona is okay. labada waa caadi 192.168.1.1 255.255.255.0/24 ama galaxy nooshad. iminka uu dansan yahay asaankan waxa uu sheegayaa inuu dansan yahay. markaa haddaa idhaahdo nooshad wuu shilmaya, waka blue buu sheegayaa, it means wuu shilmaya, kana u soo kacayaan. saas ku shaqey. waxaa hadhay haddaba sidii automatic loogu program. iminka waxaan siina un networkin baanu sheegnay inuu networkaas u aqoonsado. haddaba sidee buu automatic u siinayaa? accept ama exit haddaan qoro iyo egas haddaan qoro justin waa isku mid yagna labadaan waa soo gaabsan. es baa qoraysa, waxaa oranaysa dhcp pool server 1 ama isla magacii horaan bixinaynaa qaybta koowaad waa qortay. qaybta koowaad markaad qorto waxaad qoraysaa networkan ku lahaa intan baad qoraysaa 0/0
zerogaad imika ka dhigaysa because one dee halkan weeyaan wanku network wuxuu sheegaya halkoba waa zero waxaan oranayaa network haddaan net qoro iyo haddaan network qorana waa isku mid 192.168.1.0 255 class B ha sheegaysa 255.0 waa saas networkina waanu sheegay inuu 192.168.1.0 uu ka dhigo automatic waxa la idhaahdo default baa jira default router baa jira df haddaad qortid iyo default router markaad df qortid haddaad taabtid tab laptopkaaga tab haddaad taabtid isagaa dhamaystiran waxaad sheegaysaa albaabka default router waa albaabka soo baxay 192.168.1.1 waayo haddaad halkaa ku arkaysid intaasaan qoray intaasi it means waxa weeyaan halku albaabku ka baxayo ma raacinaysid subnet mask ma raacinaysid kani subnet mask buu leeyahay laakiin kan ma raacinaysid waayo kan waa address 192.168 metri subnet maskna uu kaa raba laakiin kan waxa weeyaan albaabka sheeg weeyaan interboranaysa haddana waxaa jira waxa la idhaahdo DNS serverku waa address waa set address A iyo B iyo C iyo D ka qaadatid waa ismid laakiin marka la qorayo one digit ama one number waxaa loo qoraa sida waxaan qoranaa ama 8.8.8.8 ama .3.3.3 ama .1 numberka alla numberka jeclataad qaadato imika waxaan qoranaa 5.5 bes haddaba waxaa isweydiinaysaa qofkan aad u samaysan network waxbuu kusoo darsan karaa hadday dee organizationku ballaadho ama ururka hadduu ballaadho dee laptop kale iyo qof kale hadduu imaado inuu kusoo xidhmo jeclaado kusoo xidhmaya waxaad samaynaysaa wax la idhaahdo excluded it means waa store waxaad ii store karaysaa waxaa oranaysa exit dhcp configka waad ka soo baxaysaa hadda waxaad oranaysaa ab dhcp waxaa si automatiga ee igu exclude garaysaa excluded igu samaysaa 192 numberka waad sheegaysa waxaad sheegaysaa addresska 192.168.1.1 halkaas 1 buu ahaa halkaas 0 network 0 buu ahaa address 1 buu ahaa defaultigu ama gatewayga ama albaabku ka baxayana 1 buu ahaa ma sheegaysa waxaad ku qoraysaa halkan inta lagu store garayso waxaad oranaysaa 20 store garay tusaale ilaa 192.168.1 20 ilaa 100 ama 90 ama 80 ama 70 ama intaas leedahay u store garay ayaa store garaysa hadday dhahdo .90 waa okay adaa waa intaad u store garaynayso waad ka baxaysa exit baa oranaysa waa dhamaata haddana exit baa oranaysa waxaa imanaysaa user mode waxaa oranaysa enable ama en configuration terminal haddana host qaybtii labaad baan sameynaa qaybtan hadda waan dhamayn hadda qaybtan aan sameynaa hosting name waxaan sameynaa magaciisa qaybta labaad int fat internet 0/.
1 waxaad u address garaysaa IP address waxaad siisaa IP address 192.168.2.1 255.255.0 noo xadamin waayo awal isticmaalaya waxaa loo diminaya exit IP DHCP pool server 1 buu ahaa kii hore imika server 2 markaa saa u qortid enter matri waxaad qoraysaa haddaba network sidii ka hore network 192.168.2.0 waayo 1ku network wuxuu ka bilowdaa 0 waxaad raacinaysaa 7 maski 255.255.255.0 defaultigi ama geed halkii uu ka baxay 192.168.2.1 DNS serverkii kii hore 55 baan qaadan kan hadda waxaan qaadanaynaa 7.7.7 ama .7 waa ka baxaysa haddana waxay isweydiinaysaa inteebaad kana u store garayn kartaa excludedkiiba hadhay 192.168.2. kii hore 20 baan oranaa kan horena 40 ama 100 ilaa 192.168.2. 20 ama 30 ama 90 ama 10 sajaasha exit that f enough marka saad tiraahdid halkan ay imanaysaa laptopkan ay imanaysaa waxaad tegaysaa desktopka halkan ay imanaysaa imika waa static waxaad ka dhigaysaa dynamic markaa dynamic tiraadid waka wixii aan soo qoro dhan waka default gatewaygu waa 1 IP addressku halkaas waa 2 1kii waxaa qaatay waa ka 1kii halkaasaa 1kii la dhigay halkaasaa 1kii la siiyey marka halkaa 1kii la siiyo halkan wuxuu qaadanaa 2 kana 3 kana 4 kan imika waa 2 haddaan kan furnana imika dee kana xu qaadan 3 because 1kii waa gateway waa halkuu albaabku ka baxay albaabka 1 la siiyey waa kan DNS serverkii aan ku qorno meesha printerkana waxaan imano configurationka DNS server wixii oo dhan waa ka gatewaygii DNS serverkii halkan ku daa settingka tag faafintan 0 tag waa kan halkan addresska versionka waa isku mid waa caadi saasaad oranaysaa waa kan waa 4 kuwaanay kula 4 ku noqonaya halka waa 2 3 4 waa ka 4kii waa ka 7 maski hadda halkaa tagtidna waa gatewaygii halkana waa DNS serverkii aan eegno haddana kana tegaysa waxaad tegaysa IP configurationka halkii lagu configuration garaynayay DNS serverka tegaysa DHCP ga tegaysa waa 2 1kii waa kan 5 baan ka dhigay haddaan kan tagnana kana just like that waa isku wada mid waa 3 kolba kaada hor furtun baa ka hor qaadanaya kana wuxuu qaadanayaa 4 waa ka 4 haddaba ma isku dirmayaan labadan network ma wada hadli karaan halkaas ninkaasi
printanka ma ka saaran kara filing mar kale successful because waa nigi hore nigu sheegay wuxuu akhrisanayaa marka hore switchkani wuxuu akhrisanayaa MAC addresska markaan mooska saa duligo waad arkaysaa marka firastiga aad usoo dirto uu diidayaa because wuxuu oranayaa hortaan ku yaro barto uu ku baranaya diidid caadiya maaha qalad aan qalday maaha wuu ku baranayaa horta yaa tahay buu ka oranayaa wuu isbarayaa horta waa faalid buu oranayaa waa ku celinaysaa marka uu bartay inuu yahay network 2 ama 192.168.1.2.0 inuu yahay wuu isbarayaa that's why imika way wada shaqeynayaan tani kan la hadli karaa isagoo different network halkaas 2 tahay halkaas kala wadayaa السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.